maantay sidaad arkaysaan shir ku yeelana halkan wafdi ballaaran oo ka socday IMO-da waftigaas uu madaxweynuhu qaabilay wasaaradda arrimaha gudahana aanu qaabilay shirkaasuna wuxuu ahaa shir horay u taxnaa oo ay horay u tageen wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka iyo IM to Nairobi ku soo yeesheen safarkuna wuxuu ahaa maanta runtii safar miro dhal ah wuxuuna ku dhamaaday is-afgarad barnaamijyo badan oo aan rabno inaanu ka wada shaqeyno IM-ta iyo dowladda Jubbaland waanu isla afgarannay waxaanu rajaynaynaa inay xafiiskooda halkan ka furtaan shaqadina ay bilaabaan mar dhow annaguna aanu dhinacayaga u diyaar garowno waana runtii barnaamij loo baahnaa oo muddo dheer aanu sugaynay oo maantay afkiisa ugu horrowday bilowday waxaanu leenahay soo dhowaada iyaga annaguna insha Allah waxaanu u diyaar garoobi doonaa safarkooda xiga inaanu steepka maanta aanu joogna steepka ku xigay aanu u diyaar garowno marka wixii dhankooda ana waxa oran doonaa waxa weeye projects kala gedisan ama DDR programka ha noqdo ama hadda qaxootiyaashan iyo barakacayaashatan barnaamij loo samayn doono oo deegaankoodii iyo shelterkii loo waxaan lahaa noqdo waxa jiro kala barnaamijyaal kale oo si toos ah dawladda looga caawin doono taana markii xafiis ku furmo ayaa la bilaabi doonaa. Thank you very much. Great pleasure to visit Kismayo on the first occasion, and enormous pleasure and privilege to meet with the President and to meet with the honourable ministers here today. IOM was here really to introduce itself to the President and his members of his cabinet, and to outline really the support that IOM sees that it's going to be able to provide over the subsequent years, be it either in the humanitarian sphere, in the technical specialist areas that IOM can support, for example in border management, and also in stabilization and in development activities. So a great pleasure to meet with the President and his honourable ministers, and IOM stands ready to continue to support Jubaland State.